wafdi uu hogaaminayo murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah wadaniga Somaliland Ambassador Maxamed Cali oo cabdi uu weheliyo xildhibaan Mukhtaar Xasan Maydhane iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga ayaa maanta u anbabaxay deegaanada hoos yimaada gobolada Awdal iyo Salel si ay bulshada deegaanadaasi ugu wacyigelin lahaayeen inay isdiiwaan geliyaan oo ay qaataan kaarka codbixinta waxaana wafdiga si weyn loogu soo dhaweeyay degmooyinka Qurujeed, Boon, Ceelbax iyo Xariirad waxaana wafdigu sidoo kale ay kormeereen goobaha diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaana mas'uuliyiintani ay bulshada deegaanadaasi ugu baaqeen inay isdiiwaan geliyaan uu hogaaminayo musharax madaxweyne ku-xigeen Maxamed Cali oo cabdi gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Abubakar Good Mukhtaar Maydhane baarlamaanka oo degmooyinkan ku matala degmooyinkan oo dhan isaga ku matala gudoomiyaha gobolka Roobla Muuse Xoosho reer Boon isagna saraakiisha kale xisbiga Cabdilaahi Hafiyo ay ka mid yihiin Maxamuud iyo aad iyo aad baan horta inaga mahadnaqaynaa Boon kaarkana saan ognahay maalmahan aad bay wada qaateen yar iyo weynba cid kama dhinno waxa jeebka sariya jeebka soo ku haystaan maalinta ay gaadho doorasho ay gaadho kaan nacabnayna waynu ku saaraynaa kaan jecelnahay waxaan noo qabanayna ku soo dhaweynaynaa masayrkeenu inagu gacanteenu ku jira maalintii kulmiye waanay si fiican u soo saarnay madaxweynihii jawaabtiisii fartayda eedaysaan buu niin waan ognahay laakiin maanta isagna afkiisu eeday baan oranaynaa maanta dambe timaado doorashadu gacanteena ku saaraynaa waxaan u soconaa muhiimadda maanta halkan u nimidnay waxa weeyaan dhammaan deegaanada oo dhan u maraynaay khaasatan degmada Boon waa inay isdiiwaan gelisaan oo qaadataan kaarka codbixinta ciddii uu ka maqan yahay iyo ciddii cusubba diiwaangelin baa halkan la inoogu keenay halkan ay noo taala 15 cisho haddii tan waqti kooban baa hadhay waa inaad cid kasta oo gaadhay waqtigii diiwaangelinta inaad aqalada gashaan inaad buuraha kortaan inaad meel walba tagtaan oo maxaan ku dhahay dadkiina diiwaangelisiin sababtoo ah isbedel ma samayn kartaan waxa weeyaan Maxamed Cali maanta wuxuu joogaa waa degmadiisii degmaana cidi ka xigin weey cid ka xigta madaxweyne ma jirto ku soo dhawow Boon waxaad ummadan u heelan tahay handaraabyadii in la furfuro إن شاء الله waxaan rajaynaynaa mafaatiixda diblomaasiyadda ee adiga iyo musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciro aad haysataan inaad ku furfuri doontaan waxa ku qufulan Somaliland waxaan si gaar ah idinku adkaynayaa waa go'aankeena inaan baylihinin aynu qaadano kaararka maanta waxa loo socdaa loo ololeynayaa waxa weeyaan waa kaarkii inaad qaadataan si aad bari aad u yeelato qof muwaadina oo xaq leh oo ku doonana diidi kara ku doonana yeeli kara waa hadaanad ka haysan waxba ma tiid waxna ma diidi kartid waxna ma yeeli kartid nuxurka ugu muhiimsan maanta loo socdaa waxa weey inaan waraaqihii qaadano ku weyn iyo ku yarba inuu qof walba istiro inuu guriyaha laga soo saaro kii meesha dheer jooga fariin loo diro sidii lagu soo qaadayo oo dhanba la iska taakulaysto nuxurka muhiimadu maanta wali ololeyno ma bilaamine waa taa aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa si fiican aad noo soo dhaweyseen Allah idin karaameeyo wadna karaamayseene Allah idin karaameeyo haweenka dhalinyarada waayeelka wax karadkaba Boon ma markii horeysay imiday berigi horena dhowr sheer baan imiday aad baan ugu farxay berigi horena eed ka sheegan maayo intii hore imigana waxaan rajaynayaa inay noqoto qufulka uu sheegay xildhibaanku meesha laga furayo ugu horeysay noqoto laakiin furihii waa ka maanta loo taagan yahay campaign ma aha laakiin waxa jira ee maamul xumada jirta wixii lagu bedeli lahaa baa maanta la qaadanaya waa kaarka haddaan kaarka la qaadanin te waxba tari mayno waxaan kaan abnaa diidi mayno kaan rabnaan soo saari mayno annaguna ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inaynaan isku khasaarin ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa Boon iyo inteeda socotay iyo inta maqan inaynaan isku khasaarin aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa si aad noo soo dhaweyseen waxaa halkan la joogaa madaxdii ugu sareysay xisbiga wadani sida madaxweyne ku-xigeenkii iyo saraakiil kale oo badan waxaan halkan warbixin diiwaangelintii
marka saraakiishii sarsare ee kursiga sare ka qayb galayeen waxaad moodaa degmadan inay socodkooda ku yar yihiin oonay aad waqti ku bixinin ilaa maadii waqtiga waxa dheeraada laakiin maanta yimaadeen dadku way buuxaan meel kastay joogaan kaarka way qaadan lahaayeen xaalad dhaqaalena way jiraan dadkana markii hore dad baa guryaha ka soo saari jiray oo ugu tagi jiray la soo maro oo imika waxa weeyaan dadku badidiisu naga xidhan yahay oo wada la'aan buu xidhan yahay wadada insha Allah waxaan filaynaa wadadii soo socotay bariba dadku inuu soo maro oo baabuurta ay keento iyaan filaynaa xaggan Itoobiya wadadii ka imanaysa waa la furay wadada maanta isa soo gaaraysa oo ay soo gaaraysa dadkina uu noo imanayaa talabaadna waxaan soo dhaweynaynaa waftiga loo yimid madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen kale aad baan soo dhaweynaynaa waana niga mahadnaqaynaa halkan xarad baa la yiraahdaa waxaan ka codsanaynaa madaxda sharafta leh ee maanta noo imatay waxa weeye wixii aad naga caawin kartaan tan loogu xuni waxa weeyaan wada la'aan iyo gaariyaal la'aan waxaan soo dhaweynaynaa si muglih iyo miisaanaan u soo dhaweynaynaa raggu marun buu ballamaa waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta maadaama halkan inaan ballanay aan ugu waxaynay marka dambana hadduu eebaha aan inagu ballan qaadayna hadduu ilaahay ka dhigo intuu niyar weydaan xagal daa'in mayno masiir weyn baa inaga xidhan warqadaha horta warqadaha in la isku baraarujiyo ayaanu jecelahay si kasta ay u culus tahay aad aynu dadkeena u diiwaan gashanno waxa weeyaan halkan aynu degaynaa insha Allah ta'ala ayna farteedna ku eedi doonin waanu ku faraxsannahay sida qiimaha leh aad noo soo dhaweyseen waana idinka mahadnaqanaa waxaan marka hore u soconay inaan waxa la yiraahdaa maxaa col hortii hub samayso xaas hortiina xoolo dhaqo waxay nagu soo socdaa dagaalada noocyo hode dagaalku waa midna qorida isku rasaas wuu noocyo badan yahay dagaal loogu diyaar garoobayo doorasho madaxtooyo oo dalka ka dhici doonta insha Allah taa haddaan haynin kaad aad ku codayso maalinta iyo ololaheega iyo wixii ka soo horeeya waynu iskugu iman insha Allah ilaahay idinkii waxaan maanta idinku soconnaa inaad idinku isxilqaantaan adkaysataan wixii haddaad laydinka gaabiyo oo waxba laydinku tari waay xataa inaad idinku isku tashataan oo aad kaarkii qaadataan